السلام عليكم وانا السلام walaalahayga waxaan rabaa inaan la wadaago dhaxdayda oo kamid ah afkaartayda saan u kaalmeeyo asxaabtayda kuwaas oo qiimo badan kula agtayda iyo qalbigayga balan kula wadaago filkayga adigoo walaalkayga ama walaashayda intaas waa kaftankayga ku soo bir kanaalkayga sina share garab muuqaalkayga daawadayaal ku soo dhawaada xog taariikheed xanayno noqon doono oo aynu ugu magac darnay baraafkaaga iyo balsugaanta oo aynu maanta xalqada koobaad idinku soo gudbin doono channelkeenan maanta xalqadeena waxaan ku soo gudbin doonaa waxyaalaha ay suugaantu tahay Soomaalidu waxyaalaha ay suugaanta u taqaanay iyo qaybaha suugaanta haddaba haddaynu ku horeyno waa maxay suugaami ereyga suugaani waxa uu leeyahay macnayaal dhowr ah oo ay taqaanay Soomaalidii hore ee ka soo jeeday afguriyadii hore suugaanta deegaamada Soomaaliyeed qaarkood waxay u yaqaaneen geedaha ugbaadka ah ee naqa ugu horeeya soo baxa suugaanta deegaamada qaar kalena waxay u yaqaaneen saxan sacada naacawda udgoon ee la socota ufada roobka xilliga guga iyo dayrta suugaanta deegaamo kalena waxay u yaqaaneen cirku marka uu leeyahay daruur teel ah oo aan badnayn suugaanta deegaamada kalena waxay u yaqaaneen wadada haruurka suugaanta deegaamo kalena waxay u yaqaaneen hadalka gunuuska ah ee aan la fahmi karin ujeedadiisa inta kadib ereyga suugaani abwaankii ugu horeeyay ee tixgabaya ku soo daray kuna qeexay in ay suugaantu tahay magac guud oo ka dhaxeeya murtida xigmadda hadalka Allah u naxariistay waxa uu ahaa Xuseen Xasan Rooble waxaanu yiri suugaanta gabay maalintan sada ka sheekeeyo abidkay masaran seeriyay waan susumiyay soofaha labaan kaga jaraa saxarka baalaaye anigoo siyaaqday bay sare u qaadeen markaasay safraha ula kaceen sada mareexaane sida awgeed suugaanta xilligan waxa loo yaqaan iidaanka koosarta iyo labeenta af Soomaaliga qaybaha suugaantu waxay u qaybsantaa laba qaybood oo kala ah tix iyo tiraab qaybta koobaad ee tixdu waxay u qaybsantaa laba qaybood oo kala ah hees iyo maanso tixdu waxa ay leedahay qodobo gaar ah oo ay kaga duwan tahay tiraabta tixdu waa la soo xigtaa waxba laga bedeli karo oo sida ay tahay ayuu baa loo soo tabiyaa tixdu waxa ay leedahay xaraf raacuna waxa weeyaan waa erayo isku xaraf ka bilaabma haddaba waxa jirta qaybta tixdu hore waxaynu soo sheegnay inay ka kooban tahay maanso iyo hees haddaba qaybaha maansadu waxa ay la hubaa in ay u kala baxdo 8 badood oo kala ah 1 badda gabayga 2 badda geraarka 3 badda gurowga 4 badda buraamburka 5 badda masafada iyo jiiftada 6 badda wiglada 7 badda saarka barcadaha balooleyda 8 badda shiribka haddaba haddii aynu ku horeyno badaha maansada badda koobaad ee ugu horeysa waa badda gabayga waa bad ka mid ah badaha maansada gabaygu dhismahaan waxa uu leeyahay ugu yaraan 2 xaraf raac ugu badnaana 3 ilaa 4 xaraf raac gabaygu waxa uu leeyahay habdhac luuq iyo miisaan goobiye meeriska ama tuducda gabayga ahi waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood oo kala ah hoojis iyo horis tusaale ahaan haddaynu soo qaadano 2 xaraf raac gabayga leh waxa weeyaan hiirtii intaan cululo labay gulufu heeseeyay waa 2 xaraf raac oo xaraf raaciisu yahay ha 3 xaraf raac soo gudub isonankay martaba sabab qarsoon maaha xaraf raacaasuna waa saada 4 xaraf raac xasan iyo xuseen iyo xirsa ka xasuus badane xaraf raacaasina waa haddii aynu kaaleyno qaybteena labaad ee badaha maansada waa badda geraarku waa bad ka mid ah badaha maansada geraarku dhismahaan waxa uu leeyahay 1 xaraf raac geraarku waa uu ka tudciye gaagaaban yahay gabayga waxaanu leeyahay habdhac luuq iyo miisaan gooniya tusaale ahaan waxa goob yar la keenay qaana waaban aqaane gucgucdeeda arooriyo iska gaagixinteedu indhaha waa gashinkooda aawe reera gubeeya xumbadii gudbani
halkaa haynoo joogto maanta xubinteenna koowaad ee aynu ka soo qaadanay qaybaha suugaanta baro afkaaga iyo bal suugaanta.